sidee jirkeenu uga jawaabaa xanuunada waa mowduuc runtii aad muhiim u ah. waxaan rajaynayaa muuqaalkan markaad dhamaysato kadib in wax badan aad ka faa'iidi doonto sida jirkeena uga jawaaba xanuunadana wax badan ay kaaga bixi doonaan. jirka bini'aadamka wuxuu u qalabeysan yahay noocyo kala duwan oo dareemayaal ah. noocyada dareemayaashaas waxaa loo yaqaanaa nociceptors. nociceptors waxay ku kala firirsan yihiin maqaarka, muruqyada, lafaha iyo xubnaha gudaha ee jirka. nociceptors waxay aqoonsadaan xanuunka iyo waxyaabaha keeni kara. nociceptors waxay bilaabayaan inay diraan fariimo ku socda maskaxda iyagoo maraya neerbayaasha sida maskaxda loo wargeliyo. macnaha xanuuna dhacay, nociceptors waxay qaadayaan fariin, waxay sii marayaan neerbayaasha, waxay u gudbinayaan maskaxda, waxay leeyihiin xanuun ayaa yimid. fariinta waxaa qaada marka neerbayaal gaar ah. neerbayaashaasi waxaa loo yaqaanaa neerbayaasha dareenka xanuunka. marka maskaxdu hesho marka fariinta xanuunka sheegaysa, waxay bilaabaysaa maskaxdu inay ka falceliso iyadoo adeegsanaysa habab kala duwan. maskaxdu way ka falcelinaysaa iyadoo adeegsanaysa habab kala duwan. maskaxdu waxay aqoonsanaysaa marka koowaad meesha uu xanuunka ka jiro, marka labaad waxay aqoonsanaysaa nooca xanuunka, marka saddexaadna xanuunka inta uu leegyahay. inta aysan jawaabba bixin, saddexdaas shay ayay aqoonsanaysaa. tani marka waxay suuragelinaysaa in jawaabta xanuunka laga bixinayo ay noqoto mid waxtar leh si loo qaado tallaabooyin iyo daawooyin ku habboon. saddexdan shay maxaa loo ogaanayaa? nooca xanuunka, meesha xanuunka ka jiro iyo inta uu leegyahay. maskaxdu inta aysan daaweyn iyo tallaabo kale aysan qaadin, saddexdaas shay ay ogaanaysaa si daawada ku habboon iyo tallaabooyinka ku habboon ay maskaxda u bixiso. waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan within seconds, xataa ma dhihi karno dhururuq aan dhahna dhururuq. wax aan qiyaasi karna maaha, waa degdeg ay ku dhacayaan. macnaha jawaab celinta xanuunka waxay sidoo kale noqon kartaa oo ay maskaxdu samaynayso, aan ka hadlaynaa markay saddexdii shay ogaato, inay sii dayso kiimikooyin kala duwan sida endorphin. endorphin marka la sii daayo, endorphin muxuu yahay? analgesic dabiiciya waaye, waa xanuun baabiya dabiiciya. analgesigaasi endorphin marka la sii daayo jirka, waxaa waaye maadaama xanuun baabiya uu yahay, xanuunkii ayaa qofka ka yaraanayo. fartaa wax kaaga dhacay tusaale, ama xusulkaa meel ku dhufsatay, ama carabkaa iska qanintay, xanuun baa dareemaysaa. xanuunka wuu ku haynaya, laakiin wax yar kadib weliba u fiirso, markaa xanuunka fartis meel kaaga dhacdo ama carab iska, maskaxdaa ku xanuunaysa. sababtoo nociceptorskii fariimo diraayo maskaxdii waxay leedahay endorphin hala sii daayo. inta aan la dhihin endorphin hala sii daayo, waxay leedahay xagee xanuunka ka jiraa, noocee waaye xanuunka, intuu la egyahay. marka intaas cabirto ayay waxay leedahay endorphin hala sii daayo, xanuun baabiye dabiici hala sii daynaya, xanuunkii wuu kaa yaraanaya. adigoo marka waxa cunin daawo ah ayaa xanuunkii kaa yaraada. wax kale ma ahan ee endorphinkaas oo maskaxda soo daysay ayaa mas-uulka ah. ilaahay ka sugo. sidoo kale waxaa la kordhinayaa garaaca wadnahaaga, neefsashadaada, cadaadiska dhiiggaada. xaaladahaas oo dhan maskaxda ayaa wado. marka xanuunka ugu dhaco wadnaha, cadaadiska dhiigga, neefsashada, neeftuur ayaa bilaabaysaa. waxaasoo dhan marka maskaxda ayaa wado. nidaamyada marka jirka ee xakameynta xanuunka waxaa ka mid ah nidaam loo yaqaano pain modulation system. dadku inta badan inaysan maqlinaa laga yaabaa. waxaa nidaamkani uu awoodaa inuu yareeyo waxna ka bedelo sida xanuunka qofku u dareemo. tani waxay dhacdaa marka iyadoo loo marayo habab kala duwan oo ay ku jiraan sii daynta kiimikooyin jirka sida serotonin, norepinephrine, kuwaasoo ka qayb qaata yareynta xanuunka. pain modulation system marka waa nidaam yareeya xanuunka kow. sidoo kale waa nidaam wax ka bedela sida xanuunka loo dareemo. tusaale, marka carabka iska qaninto sida xanuunka u dareemayso, marka aad gubato sida xanuunka u dareemayso, marka ay xabad kugu dhaco sida xanuunka u dareemayso. waxaasoo dhan waa xanuuno kala duwan. waxaasoo dhan qaabeynaya pain modulation system. isagu wuxuu kala baahan markuu xanuunka nooca uu yahay uu fahmo, wuxuu soo daayaa adrenaline iyo cortisol. waa laba hormoon oo xanuunada yareeya. labadaas hormoon sidoo kale waxay yareeyaan qofku inuu stress dareemo ama xaalad degdeg ah galo. tusaale hadda waxaa arkaysaa
qof ayaa tusaale wax yar ku dhaceen shoog oo galaya qofna caadi waayo labadaas qof waxba kuma kala duwana kaliya wuxuu ku kala duwan yihiin cortisolka iyo adrenalinka la soo daynaya oo stresska wixii ka yareynaya ayaa qofna ka soo daahaya qofna waa uu soo dhaqsanaya waxay ku xiran yihiin marka waxyaabaha macdanta jirkooda dadkaas marka horeba haysteen hormoonadan marka waxay kordhiyaan feejignaanta jirka waxay xoojiyaan sidoo kale awoodda jirka uu uga jawaab bixiyo xaaladaha degdega ah waxayna si meel gaar ah xataa u yareeyaan dareenka xanuunka nidaamkan oo ah pain modulation system marka laga soo tago inuu yareeyo xanuunka iyo inuu aqoonsado nooca xanuunka sidoo kale neerfayaasha wuxuu ku qasbaa in aysan xanuun dareemin sababtoo waa meesha ugu badan ee xanuunka laga dareemo waa neerfayaasha jawaab celinta xanuunka marka ma aha kaliya in la ogaado dhaawaca sidoo kale jawaab celinta waxaa noqonaysa in qofku bogsasho degdeg ah sameeyo xanuunka waa la yareeyay laakiin ma bogsan jawaab celin ma noqonaysa taas marka pain modulation system waxay ka qayb qaadanayaan in xanuunka la yareeyo sidoo kalena qofku si dhaqsi ah u bogsado daaweynta waxaa loo habeeyaa marka hadba darajada iyo nooca xanuunka waxaasoo dhan marka pain modulation system ayaa habeenaya sidoo kale baahida gaarka ah ee bukaanka isku difaac ma dadku isku xamu u baahna qof waxa laga yaabaa inuu wax badan u baahan yahay qof waxa laga yaabaa wax yar inuu u baahan yahay qof inay wax yar ku filay waxyaabahaas oo dhan marka fahamka sida jirkeenu uga jawaabo xanuunka waxay muhiim u tahay horumarinta daaweynta qofka in la daaweeyo ay muhiim u tahay sidoo kale waxay muhiim u tahay in xanuunka la yareeyo sidoo kale bogsashada qofka ay muhiim u tahay waxaan rajeynayaa inaad hadda kadib aad fahmi doonto sida jirkeenu uga jawaabo xanuunada ama sida jirkeenu uga falceliyo xanuunka like saar muuqaalka haddii aad ka heshay